nafteedayna waxaan ula dardaarmayaa waa taqwada alle subxaanahu wa tacaala. allah subxaanahu wa tacaala nasiran siiyey inaan kulanno ama in awoodda maanta aan haysano oo ah nafta alle subxaanahu wa tacaala uuna siiyey oo aan ku soconno oo caafimaadka alle subxaanahu wa tacaala na siiyey alle subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan. mid labaad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwadiisa inaan ku dadaalno oo camal kasta aan samaynayno uu noqdo camal loola jeedo alle subxaanahu wa tacaala wejigii. nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska abi hurayra uu warinayo oo ku sugan saxiixaynka wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina allaha idaa axaba cabdan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu addoon jeclaado naadaa jibriil ayuu u yeeraa fayaquulu wuxuu ku yidhaahdaa inii uxibu fulaan faaxibah fayuxibuhu jibriil. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhaahdaa jibriil intuu u yeero hebel ayaan jeclahay ee adigu hebel jeclow fayuxibuh jibriil wuu jeclaadaa qofkii fayunaadii jibriil fii ahli الsamaa jibriil dadka samada ku nool makhluuqaadka samada ku nool ayuu u dhawaaqaa jibriil oo wuxuu yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hebel ayuu jecel yahay ee jeclaada fayuxibuhu ahlu الsamaa dadka samada ku nool oo degan oo malaa'igta iyo makhluuqaadka kale ayaa jeclaada qofkaasi fayuxibuunahu qofkaasay jeclaanayaan. markaasuu wuxuu leeyahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh fayuudacu lahu alqabuulu fi اddunyaa aw fi اlard kadib qofkaasi waxaa la siinayaa ogolaansho iyo jacayl iyo dadku inay jeclaadaan fi lardi arlada dhexdeeda. xadiiskan waa xadiis muhiim ah oo min jawaamic alkalim ah. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa oo rasuulka uu noo sheegayaa in hadduu alle subxaanahu wa tacaala addoon jeclaado samada iyo dhulka laga jeclaanayo ay qofkaasi waa qof noloshiisoo dhan ay tahay nolol wanaagsan. u fiirso xadiiska ina allaha idaa axaba cabdan naadaa jibriil ilaahay hadduu qof jeclaado su-aasha isweydiinta le waxa weeye siduu alle subxaana wa tacaala qof u jeclaynaya asbaabtee keenayso in alle subxaana wa tacaala uu ku jeclaado. anigu muslim ahaan seen u noqdaa qof alle subxaanahu wa tacaala jecel yahay. ilaahay baa ka jawaabay fi lqur'aan wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah faاtabicuunii yuxbibkum allah. qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow in kuntum tuxibuuna allah haddaad tihiin kuwa alle subxaanahu wa tacaala jecel haddaad tihiin kuwa alle subxaanahu wa tacaala jecel faاtabicuunii aniga isoo raaca. ay nebi maxamed baa odhanaya faاtabicuunii waxaad tidhahdaa buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala isoo raaca aniga yuxbibkum allahu alle subxaanahu wa tacaala waa idin jeclaan. asbaabaha waxaa ugu horeeya in alle subxaanahu wa tacaala ku jeclaado in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aa raacdayd. laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka alle subxaana wa tacaala waxaa idigu sugan ku dayasho ama miithaal wanaagsan tusaale wanaagsan ayuu rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh idin yahay. sidaa daraaddeed walaalayaal maadaama rasuulka uu tusaale yahay oo haddii aad jeclaatid ama aad raacdid rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo alle ku jeclaanayo waa in aan rasuulka raacnaa oo alle subxaana wa tacaala awaamirtiisa raacnaa. ilaahay subxaana wa tacaala asbaabaha uu ku jeclaanayo ama jaceylkiisa lagu helo waxaa ka mid ah in rasuulka la raaco. rasuulka haddaad raacdidna ilaahay baad raacday weeye oo aad ma aragtay adeecday. rasuulka marka la adeecayo ma aha keliya in lagu soo kobo waxyaabaha muuqda laakiin waa in akhlaaqdiisoo dhan la raacaa. akhlaaqda la raacayo waxa weeye rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cibaadadiisa dhaqankiisa suu ula dhaqmi jiray dadka iyo deriska xaasaskiisa suu ula dhaqmi jiray dadka ku hareersan dadka cadowgiisa ah
adduunyada xaalkeeda dhammaan intaa suu rasuulka ula dhaqmi jiray ayaa adigana la rabaa inaad ku dayato oo aad raacdo meeshii uu ku amro nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inaad la timaado amarka meelaha uu kaa reebay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inaad ka reebtoonto sunnadiisa aad akhriso siiradiisa aad akhriso oo adigu aad noqoto qof rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku xiran waayo jacaylku waa muhim diinta islaamka waxay ka hadlaysaa diinta islaamka waxay khitaabtaa caqliga qofka iyo qalbigiisa caqliga inaad ku fikirto lacallakum tatafakkaruun afalaa tacqiluun ay inaad waxaan suurtagal ahayn qof bini aadan inuu wax kuu sheego aad ka qaadato waxaa ka horaysa war waxaan nas ma haysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxuu yidhi ilaahay muxuu yidhi afalaa tacqiluun afalaa tatafakkaruun yaa ulil albaab midda labaadna waxaa weye waa qalbigana jacayl ayaa waxaa weye lagu kobciyaa jacaylka waxaa ugu horeeya kan alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkii in la jeclaado oo laga hormariyo taabaa waxaa ku helaysaa wanaaga aad doonaysa adduunyo iyo aakhiro hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jeclaado oo ina allaha idaa axaba cabdan naadaa jibriil ayuu u yeeraa macnuhu waxa weye hadduu alle subxaana wa tacaala ku jeclaado adigu samadoo dhan baa lagaa jeclaan hadduu alle subxaana wa tacaala ku jeclaado adduunyadoo dhan baa lagaa jeclaan oo alle subxaana wa tacaala arrimahoo dhanba kuu yasiri marka jacaylka maxaa lagu helaa kow waxaa lagu helaa in nebiga la raaco saan sheegnay midda labaad waxaa lagu helaa inaad tahay qof daacad ah qof mukhlis ah waxa aad samaynaysa ilaahay dartii aad u samayso afkaada iyo qalbigaada inay iswaafaqaan oo ilaahay markuu kaa arko daacadnimada iyo ikhlaaska iyo wanaaga ayuu alle subxaana wa tacaala ku jeclaanayaa macnuhu waxaa weeye waxaad samaynayso diin ah diin waxay kaa tahay dhab waxa aad samaynayso khayr ah ilaahay wejigiisaa raadinaysaa alle subxaana wa tacaala ayaad rabtaa inuu kuu yasiro umuuraha taa markaad gaarto ikhlaaska iyo wanaaga iyo daacadnimada iyo rasuulka aad waxa weye ku dayato iyo cibaadada aad ku dadaasho meeluhu alle subxana wa tacaala kaa reebe ka reebtoonto taa intaa markaad hesho ilaahay waa ku jeclaan ay qalbigaada xagga alle subxaana wa tacaala u dhiib alislaamu huwa alistislaamu lilah walinqiyaadu lahu biaaca waa inaad alle subxana wa tacaala isu dhiibtaa waa inaad waxaa weeye khayrka alle subxana wa tacala uu kula doonaya adiguna aad egtaa allah subxaanahu wa tacaala when he loves a servant ina allaha ida axaba cabdan look at the hierarchy when Allah subhanahu wa ta'ala loves you he tells Jibril to love you then Jibril loves you and after that the dwellers of the heavens love you and the people in this earth, in this dunya will also love you. So it comes from Allah subhanahu wa ta'ala and the whole world, the heavens and the earth loves you. But the question is, Inna Allah idha ahabba abdan, when Allah loves someone, how do we attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala? As a Muslim, what can I do to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala, to reach that status? The status of being loved by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ He says, قُلْ, say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell people, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, if you love Allah, فَاتَّبِعُونِي, follow me, follow Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, Allah subhanahu wa ta'ala will love you. So if you want to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala, to attain that level which we just talked about, then love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow his footsteps. Love the Prophet and follow his footsteps. You will be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. If you want to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala, follow the Prophet. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. And following the Prophet, what does it mean? It means obeying Allah subhanahu wa ta'ala and obeying his Prophet.
So following the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't mean only to follow him by the outer appearance, not to follow him by only some aspects in Islam. ادخلوا في السلم كافة. Enter into Islam wholeheartedly. You have to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wholeheartedly. Follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his sayings, in his ibadah, how he used to conduct ibadah, to pray, in how he used to read the Quran, how he used to interact with other people, his actions, his manners with his relationship with his wives, his neighbors, his companions, his friends. You know, it is wholeheartedly. You have to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That means that your life, your role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will love you. That means that whatever you're doing for Allah's sake. So following the Prophet sallallahu alaihi wasallam will attain your love of Allah. Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Can you imagine that Allah subhanahu wa ta'ala is saying, calling Jibril and telling him that I love Abdullah, I love Fatima. Tell the people, or you yourself, Jibril, love him. So one may ask, love is a matter of the heart. How can Jibril love instantly? Allah subhanahu wa ta'ala created Jibril. He created the angels and created all of us. So Allah subhanahu wa ta'ala, He knows our hearts. And when it comes from Allah, then instantly and automatically we love that person. So Allah subhanahu wa ta'ala holds and attains our hearts. Allah subhanahu wa ta'ala is a change of hearts. So when it comes from Allah, then it automatically, Jibreel loves that person, and automatically the dwellers of the heavens love that person. And that person is also loved by these people in dunya. So subhanallah, it comes from up, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is when you get the happiness of life, the tranquility, the love, the hope, and everything you have. You find that your life is at ease. Why? It's because Allah subhanahu wa ta'ala loves you. Attaining that love is in following the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. That you have the best example in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in whatever you're doing, in how you conduct yourself, in how you relate with others. Follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you will be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillah. When you give your heart to Islam, to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will love you. The second point is sincerity, being honest with Allah. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. All doings and good deeds, they come with a niyyah, with your intention. Why are you doing this? Why are you working for Islam? Why are you obeying Allah subhanahu wa ta'ala? Why are you doing what you do at your workplace, at the masjid, at the community, wherever you are? Whatever you're doing, why do you do it? How are your actions? Do you do it for Allah subhanahu wa ta'ala or for other people? If you are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, if you are honest with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will love you. If whatever you're doing, you're not calculative, what do I gain from here? What do I do? If I help this person, inshallah he will help me another day. We need him tomorrow. That's our language today. Let me help this person because I may need him tomorrow. That is not how you'll be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. You'll be loved by Allah subhanahu wa ta'ala when you know that I am sincere. Let me help this person because of Allah. Let me do this because of Allah. Let me forgive this person because of Allah. And this will attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. You will have the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And from that, you will have the love of the angels and the love of Bani Adam, of people. So what else do you need? So, رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. You are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever you're doing it for Allah, then Allah will be pleased with you. And when Allah is pleased with you, then everyone will be pleased with you. So ikhwati fillah, we say, follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will attain that love from Allah subhanahu wa ta'ala. And also be sincere and honest in whatever you're doing. Be sincere in your doings, in your relationship, in everything you're doing, and Allah subhanahu wa ta'ala will love you.
And when Allah loves you, then everything will be easy in this dunya. Then thirdly, al-ibadah. Worship Allah subhanahu wa ta'ala. Out of your time, always remember Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Him in your heart. Adhkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Remember Allah subhanahu wa ta'ala and worship. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. Stand at night and pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who worship Him constantly. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Those who stand at night, those who pray to Allah subhanahu wa ta'ala, those who do sadaqah or have the time of Allah subhanahu wa ta'ala, being alone with Allah subhanahu wa ta'ala, adhkar, Quran, worshipping Allah, your salah, time of prayers, then Allah subhanahu wa ta'ala will love you. Whenever you connect with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will love you back. So we attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala in many ways, but in this khutbah, we like, to have that in 2-3 times. Or first is to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and secondly to be sincere and honest, and thirdly to constantly keep the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala in ibadah, and that will give us the love of Allah subhanahu wa ta'ala. That doesn't mean that to forget the transactions we are doing, the riba, abstaining from riba, abstaining from haram, abstaining from evils, abstaining from any evil transactions and bad transactions which may lead you to Jahannam. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all, and may we attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala in whatever we are doing, and may we be sincere with Allah subhanahu wa ta'ala and honest with our friends, with our relatives, with our wives, with our parents, with everyone we deal with. Jazakumullahu khairan wa baraka fikumullah.